بسم الله الرحمن الرحيم. ودرتي أفراد كاني waxaan rabaa inaan daba dhigo kii igu dambeeyay hadda aan tusaale u soo qaato macallimiinta qaarkood waxyaalaha ay sameeyaan waalidkuna waa ku lamaansan yihiin waalid baa ilmahaana ii keenaya kabacdina waxaan rabaa macallin haddaan ahay inaan ilmahaas horumar gaarsiiyo dhowr qisa in tusinaya oo ka dhacda Yurub iyo America aad ugu badan iyo North America hadda kale ugu baraarujiyay North America waxaa laga yaabaa inaad aragtid hal arday oo isku maray 10 dugsi maxaa keena waxaa laga yaabaa inaad aragtid ilmo guri iska fadhiyo madrasa aadin maxaa keenay dhowr sheeko dhacda idin sheegaya hooyo Soomaaliyeed baa wiilkeeda madrasa geysatay marka ilmaha badanaaba waqti yar baa la hayaa waqti ma badna saacad laba saacadood saddex saac bay degmata asbuuci helaan marka macallin baa u boobsiiyay alif baa taabala wuxuu u boobsiiyay alifku baray quraan u bilaabay waxay dhahan quraan alif xamala ka qalocday albaraka ma toos ilmihi ka loo barin sax baadana ka sax aan la barinin ama markuu ama marayo biraabinaas ma yaqaano macallin test ka qaado wayda uu arkay inuu cunuga waxba aqoonin wuxuu ku yiri cunugiina ilmaha Yurub iyo North America jooga jus waxay ku gaaraan 5 sano 6 sano rumaysan qaarkood dhowr sano ay ku qaadataa waana dhibaato ka socota badanaaba khibrad yari macallimiinteena qaar haysata dib baa ka fahmi doonta macallinkii markuu arkay ardaygan inuusan soo gaarinin quraanka hoose aqoonin hoos baan ku celinaya cunugii xoogaa tunkuta wuxuu walahi celinaynin waa qasbo ku celinaya walahi celinin hawartii u tagay hoos ali celinaya maxaa dhacaya ma haytay wuxuu yiri ma rabo hoos yeesh ma rabo ma iska yeelo quraanka macallinkaaga warkiisa naga ta ma yeelayo waxa uu tiri macallin inuu iska carari oo diinta iga nacine bilis ha u celinay korna u wad hoos ka soo dhis wixii maya ana rule baa noo qoran dastuurka noo qoran kuma jirto cunug quraanka dusha ka haya waa miskiin ma oga inuu shanbari school aado oo ku maqayaa maanta oo dhan habartu inuu tuushin geysa ma oga telefishin u yaalo guriga oo maanta ku jira ma oga game inuu ciyaaro ma oga in ilmaha la midka isku dhigtay quraan baranin ma oga cunugan koobiyeynayo oo ku fiirsanayo meesha uu joogo in Yurub iyo North America tahay ma oga oo ilmaha la rabo inaan diinta jeclaysiino madaxa ka xadno waxa dhan oo socdo warqad soo qortay oo ku qoran tahay quraan dusha ka xifdiyaa meel u taala wixii ma wallahi inuu quraanka xifdiyo ma hane dugsiga joogi ma diga kaxee habarta gacanta qabsatay dugsiga kala geys dugsiga kala la geeyay hadii arday la ii keeno sida caadiga waxa la dhahaa alif ba ta noo qor si aan ogaana waxa taqaanid ma aqaanid ku yiri maalinka loo geeyay waa runtii ma yaqaano because wadaadkii hore loo geeyay maalin buu qoray ka bacdi loo fiirinin ilmaha caawa guri warkaas iga qor ilmaha haysatay dad Yurub iyo North America ku nooshahay warqad cad soo qaado waxa tirada alif ilaa yaa ii qor 2 daqiiqo 3 daqiiqo 5 daqiiqo taa u qaba daraj A to Z English waxay ku qoraan 30 seconds 20 seconds bay ku qoraan hadii farta qurxiyaan hadii 15 seconds bay ku qoraan wax daqiiqad ka yar waxa ku tirada alif ilaa yaa ii qor wallahi badan qori karin 99.9 ma qori karaan macallimiintana qaladka iska darsiga tobnaad baan ku sheegi doonaa ilmaha si ka loo baro insha Allah okay macallinkii ardayga meel baa la geeyay alifka qor baa la ma qori karo dhax waxa lagu yiri waxay doqonka fariiso wariya halka kuwaas lagu darayaa cunugana cunug tuugiino dhowr toban jira wuxuu dhahay hooyo qayb waa meesha fariisan wallahi baan rabin banaanku waa horta waa wada mid kale geys toban dugsi markay marsiisay mid walba le mid si ula macaamilo mid maalin hayo mid laba hayo ilmo yar lagu dhax darayo hadba bay kala carabto guriga wuxuu ku yiri dugsi daba aadin mayo guriga fadhinaya habartii waxay ka baqday inuu ka sii carro gaalaw cunugeeda istiri guriga isaga hayso haday muddo joogtay hadii waa beer wax dhalay diin jecel muslima waxay istiri fadhi kuma yaale weelka raadi mid xoogaa maskaxda furantay maalin u geysay wuxuu sameeyay fiirsada marka wiilkii bay tiri habartii soo hoysay inuu gaalaw wax baqaya quraankii uu nacay diinta quraan ma nicay wax fahmo la ilaaha illa allah waxa dhici doona fiirso macallinkii markay u geysay wuxuu ku dhahay horiyaha ayay ma fiican tahay ma dukataa garbuhu ruuxay say caadada ah quraanka waa hilmaamay waxba u sheegay habartu waxa ku tii diinta waa necab yahay diinta waa necab tahay maya waa jeclahay muslima quraanka raba ani amaan gaaray wala mursalaat in ay bilaabo raba ku yiri macallinkii ani hoos in yeeshay marabo oo dugsi maxaa ku noqonato waxa alif baa taa lagu dhigaya macallinku wuxuu yiri inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun maadiga weyn ba alif lagu dhigaya waalihin alif lagu dhigi maya wal mursalaat lagu bilaabaya ilmo weyn buu ku daray meel fadhiyo quraan ka baxaya macallinkii leey macallin cunuga madaxa laga xadayay wal mursalaat hal leen u meeri
halkaas laydin soo bara ku dhe ilmaha dhex fariisa ku masayreen marka ilmaha projector baa u daaran waxbaa la weydiinayaa kii baasa mid nacnac la siiyo mid chocolate la siiyo mid pointiyaal la siiyo mid beri koofaa lagu gadaya mid wombaan hela mid wuxuu arkay ilmihiiyo waxaan la qoray ku tartamaya asnoo alif ba ta midna ma qoro 5 sano ka hor ba alif loo dhigay way ugu dambeysana ninkii maamulay wuxuu yiri waxaan rabaa nimanka iigeysay maanta waxay ku helayaan ku tartamaya inaan qaybta ka qaato wuxuu diyaar buu yar oo meelaha yaala buu yar buu sii xukay buu gaan qaado alif game wala game ciyaar game jeceliya inaa wada game jecelihin alif game la ciyaaray game soo ciyaar alif kana soo koobiya soo qalin warad qaado maalinkii 3 jeer qor 3 times a day waa 21 times a week maalinkii 3 jeer waa 6 minutes to 2 minutes soo qor game kana soo ciyaar ninkii naga soo wuxuu yimid alif ilaa ya soo akhrinaya game ka baray game ku dhawaaqaya xafuus ku dhaqasaya soo alifkii yaqaan ku dhawaaqaya qorayana khatar maalinkii baa maantii khidadii bedelay oo hikadii weyn hoos buu dhigay alif ka bilaabay asaga ugu hormaro wax badan sheegay wan baan balsi khatar alif baa lacag lagu helaa ma ogeynba line-kiina ka soo baxay line laad baa loo meeshay mursalaad mise aayad laad baa loo meeshay adigu maalin basi line loo siinayay page lagu dirayay maalin loo siinayay cunuga soo war mursaad dhamaynin hikadii bug haaf u bartay wana weyn oo qadar fatxada la baray atixaadka la baray heer waxa la gaarsiiyay soo kor u socda quraanka hoose leeyado waxa lagu subcinayaa 4 suuradood birabna sameeyay soo diyaari soo dhageystaa soo akhriya waxaan ku sheegsada waxay tahay hadaa tarasana u soconaya wallahi ma leexanaynin darbi ku dhacaysa hadaa darbi ku dhacdana dad muslimiin ilmahooda daqada ka tuuraysa hadhowtaan dariiqay galayaan suuqa istaagayaan wallahi way cararayaan waxa laga rabaa maskax furan oo midka yeelaya street ila u socotiyo toos socotana kula socotid midka laalaabka rabana aad la laalaabatid laakiin aniga wadaad baa meel fariisana warqad baan qoranay waxaan cunugiisa soo qaadanaynaa ka hoosayna waan tuuraynaa ilmo qoran dusha ka xifdiyaano waxa weeye ilmaha faraha ka ridaysa ilmaha Europe iyo North America ku joogay quraan dusha kama xifdi karaan ama igu qosla ama kanaxa madarasooyinka qaar kood waxa la keenaa ilmo qaahira laga soo ceshay ama xamar laga keenaa quraanka soo xifdiyay kabay xafrada loo dhigaa kabay waxa leedahay wallahi billahi dusiyaas quraanka lagu xifdiyay hablay cunugeedu cunug xun weeye kana cunug fiican weeye magaas lagu soo yaaca hal mar kabacdina way dhacdaa ilmaha waxay dhahaan anaadir la xukuma leh waa qof iyo laba way dhici kartaa laakiin sida loo badan yahay ma quraan dush kama karaan marka inaad ku kombergalayso la sintid cunug ilaahay fahmasiyay mid fahmaysa loo tahay cadaalad ma aha haday dhacdo in mid kala fiican yihiin mid way kala fiican yihiin mid levelka uu leeyahay kuwa laakiin kii quraanka xifdi karayna waa xifdisiinaya ka xifdi karayna waa ku qasbaya hadaan ku qasbayo laga cararaya munafir shaydaan oo dadka cariyan noqonaysa waxaan rabaa inaad dadka diinta jeclaysiino isku wadno waxaan rabnaa waalidka waxaan ku yiraahdaa ilmaha madrasada ageysanaysid macalinka awgeysay free ku qanay lacag ka qaataa cunug aduu fiicnaado iyo aduu xumaado labadaba aduu kugu salaabanaya ka fakar cunugaaga inaan diinta la nacsiinin ka fakar cunugaaga inaan loogu dirinin ka fakar cunugaaga sidii uu adna ku jeclaan lahaa diintan u jeclaan lahaa hadaad aragtid macalin adag oo سأو تاي واحد لما يقول هذا كان متيدي حق بقول هذا مثل الرأسو لكن معلك يري محن سمية دوسي ما راح بحين كرا والله ما خسر معلك كرا بقيا عدكو إنكارت لما جرتو إنكارت عنق خضرا والله هذه معلك حن ماشي كل شروع المها كود مثل أوجي لكن المها مودي كرام عليها بقيا قصد واحد حاجة قديقة معلك هالعوقاتها كوس مالي أنا لعيب بارسين جري جيل ما قادش marka arinta in madidin loo yahay qof ma jirta meeshan waxa number 1 ah cunugan in la tarbiyeeyo in diinta la baro la jeclaysiiyo haday dhacdo macallin ha ahaado waalid ha ahaado walaal ha ahaado qof ilmaha xumeynaya waa in la waariyo loo naseexeeyo haduu macallin yahana waalid xaq waxa uu leeyahay in meel kala geeyaan waxa ugu daran wax laga qaban karin waxay tahay in waalidkii noqdo mid adag inuu saas yihiin kaasna meel ka adid ma lahayn soo moogid ay xadiis annabi sallallahu alayhi wasallam alayhi ahaa baadiyaha waa la guuraa intana waxa weeye dariska baadiyaha waa laga guuraa waa laga wareegaa laakiin daris magaalo ugu darano meel ugu gurtaan lahayn oo inuu kugu xumaado marka haddii waalidkii ku dhalay kugu xumaado aday noqda ugu daran maahane macalinka waa laga guuri karaa macalinka raasan karaa marka arinta ah
inaan qof majaha uga xirno oo dhahno bartan fadhi wariya macalinka ku yiri macalinka maqal yes macalinka xushmad leeyahay xushmad buu leeyahay sharaf buu leeyahay laakiin hadduu macalinku waa bini aadan qaldamo qaladkiisa ilmaha majaha loogama xiri karo majaha loogama xiri karo talabaadna waxaa macalimiinta ku dhahaa mar baan ku dhahayaa war istijilciya oo sida dadka kaleba ay wuxuu u xayeysiiyaan waxna xayeysiisano maxaa ku diiday inaad dugsiga qalinka iyo sabuurada ka bedesho barashada soo gadid oo darbi ugu darto ilmuhu ay waaw dhahaan macallin group wala shaqo kamid ahay anoo qalin iyo sabuurada ma isticmaalo darbigu ugu daaran yahay darbiga ugu daarna waxay dhahaan smart board baan sameynaa waxa iskuulku sameeyaan waa inaad game islaamic game soo samaysid oo si iskuul looga ciyaaro u ciyaarsiisid وإن سؤال صوت ديارسي جوابه وإن فيديو صوت ديارسي فرصتان وإن القرآن كديال القرآن هاي وي سهلان وبركان أوكي أنت وي وقدران طريقة أوكي سهلان القرآن كان مخو بركان واحدة كذا إلا برو إلهي كل شيء معلن كستو في فيديو عاو عندها هي الماء القرآن كقول كتير وقد أمين سنته كذا إن يغنن فريسي أقولت هذا ألف يا يقرأ ما لها مدرسة أخصو جمعنا يا مدرسة أنتجي بقول ما هدي جنسي عن كل مين كذا ما يقنن وهذا هو يقنن والله أنا برني قال بقول سيدا ما يني معلم عن كوري طبعا كقول في عنيكين طبعا كي ما سافر السيء وحي مودين وح قطرة ويدين دور هيك وحوس بيرين دور نحو ويرين ورقة عندي واحد ما يعنا كقرع ما يقعد كقرين mid kasta waxaan kala jeesto way kala jeesteen waxaan dhahay waxaan siinaa 2 minutes waxay u qoraysaan alif tuya waana qana waa bawsiyeen kii u fiicnaa wax 13 xaraf qoray magacooda ku qoran ma tiri karaa meel oo ka soo aruursaday macallin arag baa ku dhax waa ku bariyay waaga waxaan ku eri ilmahan alif aqoon baan ii sheegaysaa u yeeriyaa waxay qoraan ama quraan ma sax u akhrin karaan quraanka kitaabka ka akhriyaan way yaqaan waxay yes way ka akhriyaan laakiin picture ka akhriyaan صورك أخرنايان وغاين كان عين بكذا جيم الحق بكذا يا والله وحاسنا بري ما كأني مدرسة الله يمكن تست كقاعدة أو هبرت المهم هذا ما يقعنا والله يقصها باري ويقول لا إنكارك وضع كائن ما هو سرعته يقاطي بركة بيالوها ويقول ده سهرة ودي تري حد حناق أسخبيه استلعي المعنى القرآن وحيسي والد يا معلم وحطها يبع تشرع على غيره وبلا توفيق.